وعوي سيدنا عمر بن الخطاب يا هو أخري إذا الشمس كورة ذو أخري إلى وكجار وإذا الصحف نشرت مركزوا سيدنا عمر وأمير دوال مي وصار يضرب على الأرض ساعة طويلة الرضا يكون قلقلنا ساعات فق أيو قلقلنا وسحابك الجليل كأكتين 10 المبشرين بالجنة كمذا خليف كلا بعض الرسول كان عليه الصلاة والسلام وي إلهي رسول كيسة لسان كيسة أيا جنة لو يقول بشاري عبسداس إلهي نواهيسا ما تحقين تاقن qofka sabab waxa weeye qumanihiisu qoorta ugu jiro cabsida ilaahayna ay yaraatay meesha dadkaasi ay wax ka fiiri jireen iyo meesha aanu taaganahay inaysan islahaynin horta maalinta qiyaamo maalin dhib badan weeye mawaaqiful qiyaamo ayaa la tagi doonaa wax la yiraahdo ahwaalul qiyaamo ayaa jira qiyaamadu shadaa'id fara badan ay iska leedahay ilaahay marka uu tilmaamayay waa tawdaha yooma yafirul mar'u min akhihi ومالين قفكو ولالكيس كعررايو وأمه وأبيه هو يديس أبيس أو كعررايو وصاحبتي وبنيه زوجديس يعرورتيس أو كعررايو وحانا أقوى عنود إلهي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قفك سوحا وي مالين تاسوحا هيسا شأن أو غير كيس إنو فيريو كالديقاية وأصغى أيا مركاسا دبات فربضا iyo mashaakil fara badan ayuu ka hor muuqdaa dadkan marka kala cararaya way u kala cararayaan qof walba qofkii kala xuquuqda oo ku lahay ama ku gabood fasho isleeyahay markaas saasay u kala cararayaan shidada markaas jirta ayaan la isxasuusanaynin oo xasuusta ay lumaysaa mawaaqif fara badan ayaan wax xasuusay aysan jirin oo qof walba markaas nafsi ay taagan tahay marka hadda inay qiyaamada wax badan ay jiraan رسولك عليه الصلاة والسلام وعكسوا أروري أحاديث صحيحة ونبي عليه الصلاة والسلام نارت إيه وغورما يا أموره هذا مركه وحا لو باهن يحي وحي جرى إن لأوغاده سيدا ددكاس وناسن أو سلف الصالح عبسيدا إلهي سبحانه وتعالى أيوة عبسنا أيين إلهي إنان وغبقنو أيغو عمل كوذو عمل وناسن أو هاي دد وناسن أو مقام كوذا أنان قاري كرين أي هايين cabsida ilaahayna heerkaas ay ku gaartay waxa loo baahan yahay inaan markaas waxa weeye ayaga wadadoodii aanu qaadno oo aanu ku dayano ayaa loo baahan yahay maalinta qiyaamo maalin aad maarataya u shida badan weeye dhibaato aan yareen ayaa naga horeysa arintaas in laga fikiro ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay maalin waxa weeye naarta jahannamo ayaa la keenaa hawdha rasuulku kaleey salaatu wasalaam ayadoo markaasi jahannamo waxa uu dhahay rasuulku xadiis sahih muslimka oo dhigaayo waxa uu dhahay rasuulku yu'ta bi jahannama yawma idin maalintaas qiyaamo jahannamo ayaa la keenayaa laha 70000 zimaamin ayadoo 70000 oo hoggaan lagu jiidaayo maca kulli zimaamin 70000 malakin halkii hoggaana 70000 oo malag ayaa yajiruunha jiidaaya maxsharka qiyaamada ayaa la keenayaa markaasay waxay u soo fakanaysaa dadka ahlul maxsharka oo carada ilaahi ay ku dhacday gaalada iyo munaafiqiinti iyo dadkii jabaabirada ahay ayay u soo fakanaysaa naartu waa tawda ilaahi kalla innaha lada nazaa'atu lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a waa tawda ilaahi subhanahu wa ta'ala markaas ayaa xarkahaas ayaa lagu celcelinayaa ayadoo markaasi dadka kufaarta intaan maxsharka lagu kala xukumo meeshooda inay ku gubta doonayso marka waxa la rabaa in la ogaado wax laga baqo inay naga horeeyaan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala asagoo naxariis badan haddana ilaahay cadaabkiisu inuusan sahlanayn oo dhibaato fara badan ay jirto laakiin hadda anagu waxaan rabnaa inaanu baranno dadkeeni wanaagsanay oo salafu saalix cabsida ilaahay meesha ay ka joogeen وأن هذا أنا سوق هذا حديث رسول كان عليه الصلاة والسلام أيام مالين وحو أخريه إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما أسوى إلهي نار تكورما ودحوداي أكتين وحايا الحركه
iyo jaxiimo iyo dacaam lagu merganaayo iyo cadaab aliima oo loo diyaariyo gaalada ayadaas nabigeena kaleey salaatu salaam akhriyay wa kana waraahu Hamraan ibn A'yun nabiga gadaashiisa waxa jooga marka nin saxaabi oo la yiraahdo Hamraan ibn A'yun la yiraahdo fa kharra maytan radiyallahu anhu Allahu akbar Hamraan markuu maqlay aayadaas waa dhacay isla markaasna horayuba ka dhinto naftii abadiisaba cabsida markaas gashay ayaa markaas la dhacay markaas waxa la arkay isagoo meyd hal ah mada hada aayad quraan iyo xadiis nabiga kaleey salaatu salaam ina dhageysano miya maartay asaas noqonayna xagee saameynteenu xagee joogtaa ilaahay ka cabsido alla ka cabsido xagee joogtaa aayadaha quraanka bacdu saxaaba wa taabiciin iyo dadkii salafus saalix dad badan ayaa u dhintay aayada quraan hoy dhageysteen dad badan baa la miir dabooli jiray dad badan baa ooyintooda aysan go'i jirin ayagoo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsanaya in qofka muuminka ah oo baqo waa loo baahan yahay oo san markaas oo noqonin qof isdhigtay qof mustadraj ah oo waxa weeye markaas kedsoon oo dhahaya anigu wax kasta ayaan daadiyay wax kasta ayaan ahay jannada kabaha la igaga siibi maayo ma ahaynin daabigi dadka saalixiinta saas ma aysan ahayn ninka la yiraahdo Yaziid ar-Raqashi oo taabiciinta ahay ayaa sayid waxa u tagay taabicigi jaliilka ahayo caadilka ahay Umar ibn Abdul Aziz markaasuu waxa ku dhahay markii Umar ibn Abdul Aziz Yaziid ar-Raqashi u tagay waxa uu dhahay idni ayuu dhahay ya Yaziid oo waanayo dhahay waa nin maaratay amiirkii ama imaamkii dawladda islaamka wala ogyahay Umar ibn Abdul Aziz taariikh dheer ayuu iska leeyahay taqwadiisa iyo cadaaladiisa waqtigiisa waxa la sheegaa cadaaladda sida ay u camimtay arlada ilaahay xayawaan wax cuna xataa inuu san jirin oo waraabaha iyo libaaxa iyo markaasi geela iyo looda iyo ariga kullina isla daaqayeen maxaa yeelay arlada waxa dadka baahalaha ka dhigaya oo xayawaanka xumaynaayo waxa weeye cadaalad xumada weeye taabicigaas jaliilka waxa uu dhahay wacdiyo dhahay markaasuu waxa ku dhahay ya amiiral mu'miniin innaka awwalu khalifatin yamuut waxa tahay khaliif midka ugu horeeyo oo dhimanaya Umar markaas waa ooyaalay markuu muddo ooyayo haddana iyo wax igu sii darow dhahay markaasoo waxa uu dhahay laysa baynaka wa bayna abika aadam abun hayyin dhahay adiga iyo aabaha aadam wax nool oo aabaadaadiya ma jiraan dhahay inta soo dhan waxa weeye adduunyo waa ka tageen dhahay markaasuu Umar ibn Abdul Aziz haddana ooyin ayuu la dhacay markuu ooyintii ka soo tago haddana wax igu sii darow dhahay markaasuu dhahay laysa bayna aljannati wan naari manzilatun ukhra dhahay dadka hadhow waa taw dhahay alle fariiqun fil jannati wa fariiqun fis sa'iri jannada iyo naarta meel kale u dhaxaysa ma jirto oo dadka ama naar buu galaya ama jannay galaya markaas waxa weeye fasaqada Umaru maqshiyan ali Umar ibn Abdul Aziz dhulka ayuu ku dhacay isagoo la miir daboolay ayuu dhulka ku dhacay inta markaas waxa weeye oo cabsidiisa ay tahay iyo waxyaabaha markaas oo ka khoofay bal fiirba waxa la sheegay ninka la yiraahdo Hasan ibn Salih oo taabiciinta ahay ayaa maalin waxa weeye ayuu adimaayay nin muadin oo ahay ninkan markaasuu wuxuu dhahay ashhadu an la ilaaha illa allah markuu saas dhahay waa miir dabool ma leeyri manaaradii markaasi oo ku adimaayay ayaa laga qaaday markaas ayaa meel masaajidkii la keenay walaalkiis ayaa markaas waxa weeye asaguna waa bedelayiri markaasuu aadaamay dadkii ayuu dushiyay ninka la yiraahdo Hasan ibn Salihne intaas miir daboolan oo ku jira aadaankii markuu bilaabay ashhadu an la ilaaha illa allah markuu sii dhahay miirkiisa dhamaatay cabsida ilaahay subhanahu wa ta'ala say ugu jirto iyo sida jirkiisa u danqanayo taabiciga la yiraahdo waxaan Abu Sulaymaan ad-Darani waa nin maartay mashhuur oo caarifiintii waaweyneed ah waa uu dhahay ma ra'aytu ahadan akthara khushu'an min al-Hasan ninkii hore hadaan soo sheegay Hasan ibn Salih oo aadaanka markuu bilaabay la miir daboolay asagoo ka hadlaaya wuxuu dhahay ninka la yiraahdo Hasan ibn Salih waligay ma aragow dhahay wax markaasi waxa weeye ka khushuuc badan waligay ma aragow dhahay qaama laylatan ila sabah بسورة عما يتساءلون هبين أيو مارتي صلاة الليل واستاغوده إلى واقع وكبريه أساقو أخرناي أو كن نغناي سورة عما أو مر والبالله ميردبولاي إلى صلاة الصباح أي كدلت
suuradii asagoon dhamayn ka waranay intaasoo quraanka ilaahay ku tadabburaya suuradii oo una dhamaynin ayaa intaas waxa weeye mar walba ku celcelinaya markaas amiirkiisa dhamaatay haddana waxa weeye wakaana kulama qushiya alayhi yujadidu daharatan mar alaala markii la miir daboolo oo soo miiraabo dahaarado haddana soo cusboonaysiinaya oo waa inuu weeysa qaato dinka la yiraahdo daawud daai ayaa maalin waxa uu soo maray haween ooyeysa qabri oo markaasi waxa weeye anukeeda uu ku jiray markaasay waxay leedahay layta shihri bi ay khadayka bada duud waxay leedahay alla ilaahay shalaytadayde labadaadan daan midkee uu ka bilaabay wiilkaygiyo qabriga ku jirayo labadan daan oo kugu yaala midkee uu ka bilaabay tixrigu midkoo ka bilaabay ilaa dadka aboora cunaaya waxba cunaaya daawud daai markuu naagti maqlay asaguna waxa weeye miir daboolan u dhacay waa miir daboolmay gabadha la yiraahdo shacwaana oo caabidada aheedayo dadkii maaratay saalixiinta aheed ilaahay munaajaadkiisa markay ay ku jirto waxay dhigtay ilaahi anta akramul kuramaa ilaahayow intii karaamaysan ali u karaamaysanata sayyidu saadaadata rajaa'ul muslimiinata muslimiinta midkay rajaynayaan as'aluka an taghfira al-yawma ilaahayow waxaan ku su'aalnaa maanta inaad u dhaafto likulli man ta'arrada li ma'siyatika ba'da ma'rifati qofka soo macsidaada aaday markii waxa weeye oo ku garta ka baadi ilaahu maalinta u dhaaf oo waxa weeye cuquubada oo iska leeyahay ilaahu dhaafay dhigi jirta hadii hadaynu soo qaadano dinka la yiraahdo Rabi' ibn Khaysam ayaa wuxuu maqlay nin qaariho quraanka akhrinayo إذا رأت من مكان بعيد سمعوا لها تغيدا وزفيرا نار تمرك إلهي وكورمايا مركي أركتو مكان بعيد قالت أي كأركتو هنهاج أي كمغلان يا قيلو أيضو آدي أدو حناسا وضدكاسو حناسا آيات أسمركو لقيسي فخر مغشيا عليه أساقو الله ميردبالو لك كدعي مركي أساق قرقي سوا الله قادة ثم حمل إلى بيتي قرقي سوا الله قادة ففاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء وعمرك كتغي ظهرك يا عصرك يا مغربك يا عشي معنا انت صودا قلبي ملها عبسد الهي سبحانه وتعالى او غشي يا ايداس markaas fiirinta uu fiirinay marka hadda imaamka meeshaas oo joogo oo muslimiinta ninka u weyn ayuu ahay markaas cabsida ilaahay oo ku dhacday inta soo saacadood ayuu markaas oo miir daboolnay culimada qaar waxay sheegaan ninkan taabiyo ahaye quraanka waxa akhraaya Abdullah ibn Mas'ud oo ahay saxaabiga jaliilka ahay markuu dhageystay idha ra'atu min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira mirkiisa tagay markaas waxa weeye duur waxba ma ogeyn asr waxba ma ogeyn maghrib waxba ma ogeyn isha waxba uusan ogeyn ninka la yiraahdo Abu Sulaiman ad-Darani ayaa waxa uu dhihi jiray salla Sufyan Thawri oo taabiciinta ajilada ay kamida ayaa dukado u dhahay ragcatayn khalf al-maqam maqam Ibrahim gadaashiisa ayuu laba ragcadood ku dukaday ثم نظر إلى السماء مركاسو سمada fiirshay فانقلب مخشيا عليه مركاسو قدومي أو دعي إساقو لمير دبولي بل فيري مركاس dadkaas waxa weeye cabsida ilaahay meesha ay ka saareeday bal fiiri meesha ay ka saareeday waxyaab lahay ahaayeen Fadil ibn Iyal isaguna taabiciinta waaweyn oo ahay wuxuu dukaday asaguna maaratay salaad subax ayuu maalin dukaday markaasuu wuxuu akhriyay suuratu yaasiin markuu gaaray إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون قيامة مركز يصاب حنا وصيحة واحدة لإلهي ضد كان مركز أكتينا لوصو حاضرين يا وهؤلاء مركزي فسقد ابنه علي رحمه الله فلم يفق حتى ضرعت الشمس وها مركز دعي ويل كيساء ولا ديه جري علي لا ديه جري ilaa oraahdu ay ka soo baxdane miirkiisu waa tagsanay waliba hadda marka wiilkan oo markaasi Fadil ibn Iyal oo dhalay oo wiilashiisa awlaad badan ma uusan lahayn nin cajiib ahay waxa jirtay marka uu akhriyo suurad quraanka kamida ma awoodin baa suuradaas inuu dhameystiro haddana waxa weeye ma uusan awoodin suuradan la yiraahdo suuratu zalzala ida zulzilat al-ardu zilzalaha suuradaasna ma dhageysan karnaa leeyay maxay lahayd dhageysto بس واي مارتيا ميركيسا تغاي سوره القارعه ما دغيس كاري جيرين
وعلى شيء مركو دنتي فضيل ابن عياد ويلكيسان او عابدك هاي او صالح هاي hortiisow dhintay aabihiis ka hor u dhintay markuu dhintay aabihiis waa quslaalay fadil markaas la fadilna waligiis ma quslinaalay oo waligiis macnaa murug ayaa iska hay jirto nin murug ku daalay ayuu ahay markaas waxa la yiri maxaa kugu dhacay adoo quslaa wiliga lama arag maanta oo wiilkaaga dhintay oo kugu kaligiis ahay oo ninkaas oo caabidka ahayo ilaahay cabsidiisa ku fogaatay maanta maxaad la quslaysaa fadilow markaas waxa uu dhahay in allaha ahabba mawtahu fa ahbabtu dhalika li hubbillah ilaahi ayaa waxa uu jeclaaday wiilkayga inuu dilo dhahay anuguna waxa weeye jeclaashadaas ilaahi oo la jeclaaday geerida ayaan anuguna markaas sidaasaan la jeclaado dhahay saasaan iga qusliso dhahay dad maaratay adduunyo iyo waxaas iyo maaratay dan kale ma aysan haynin dadkaas maymuun ibn muhraan ninka la yiraahdo waxa uu dhahay waxa uu maqlay salmaan al-farisi saxaabigi jaliilka ahay oo akhrinaya wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwaabin likulli baabin minhum juz'un maqsum dadka waxa yaboohooda gaalada jahannama dhamaantooda ibliis iyo wixii raaca toddoba waxay leedahay markaas si dabaq qof walbana qaybo ku leeyahay aayadaas ayuu dhageystay markaas aayada waxa akhrinaya saxaabigi jaliilka ahay salmaan al-farisi akhrinaya fasaaha ووضع يده على رأسه مركزو قيليي قعنتيس أيو مدحيس صاري وأبحي إساقو هائمة لا يدري أين يتوجه مدة 3 أيام وإسكد قاقبة أساقو هائمه ميلو أصعد أن أقوني سدح مالموت أيو ميلو أصعد أساقو قرنين أيو إسكا صعد وهائم كاسو إسكا هاي بل هذا وكورا المرك ضدك أصحاب رسول الله يا تابعينتي يا والبله سيدا مركاسي maartay ay ahaaday alla ka cabsigooda soo u ahay wax aad loola yaabo weey waxa dhacday hadda ka hor sayyidina umar ibn al-khattab ayaa wuxuu maalin akhriyay ida shamsu kuwirad wa ida nujumun kadarat ila uu ka gaaro wa ida suhufu nushirat fakharra makhshiyan alayhi wa sara yadribu ala al-ardi sa'atan tawilatan Allahu akbar waxa weeye sayyidina umar ibn al-khattab ayaa wuxuu akhriyay ida shamsu kuwirad uu akhriyay إلى وكجار وإذا الصحف نشرت مركز سيدنا عمر وأمير دوال مي وصار يضرب على أرض ساعة طويلة الرضا يكو قلقلنا ساعات فق أيو قلقلنا وسحابك الجليل كانوا أكتين 10 المبشرين بالجنة كمذا خليف كلا بعض الرسول كان عليه الصلاة والسلام وي إلهي رسول كيسة لسان كيسة أيا جنة لو يقول بشاري عبسداس إلهي نواهيسا ما تحقين تاقن